الله الرحمن الرحيم مقعي وعكاش محدين أمين الله دكتا إسكول كسعادة كارهان فصل كسديدات ما أنتو حاجين سو جيدنا وحيابا دابعة صونكا وحيابا صونكا دابعة وحاكمتا dadka in loo kala warqaado annamiima namiimnimadu waxa ay kala fogeysaa dad saaxiibo ahaa namiimnimadu waxa ay kala dishaa dad shaqo wadaag ahaa namiimnimadu waxa ay fatahadisaa dad qaraabanimadooda namiimnimadu dhibka iyo sharta ay leedahay ma aha mid la soo koobi karo Soomaalidu waxay ku mahmaadaa si xun wax u sheeg si xir uu ka daran yahay nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri laa yadkhulul jannata namaam oo micnaheedu uu yahay qofka dadka oo kala warqaada ama isku dira janno ma galo haddaba ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu naga ilaaliyo namiimnimada